Jalayaal soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay magaalada Kismaayo. Diyaaradii koowaad ayaa degtay saacado ka hor, tii labaad ayaa degtay goordhow. Labada diyaaradood waxay sideen ilaalada madaxweynaha. Sidoo kale waxaa la sugayaa isla maanta xaaladdu sidii la moodayay waa ay ka duwan tahay. 3 diyaaradood oo mid laga sugayo halkaas iyo Itoobiya, labana laga sugayo halka iyo Kenya. Diyaaradahaasi waxay sideen kuwa Kenya wufuud fara badan oo Kenyaati ah iyo guddigii dhexdhexaadinta oo uu ka mid yahay taliyihii nabad sugidda ee dawladda Kenya. Dhanka kale ee Itoobiya waxaa laga sugayaa safiiro iyo taliyayaal ka tirsan ciidanka nabad sugidda ee dawladda Itoobiya. Marka laga yimaado sidoo kale goordhow waxaa shir qabtay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe. Wuxuu isugu yeeray guriga martida ee magaalada Kismaayo ku yaala xubno ka mid ah odayaasha dhaqanka, ururada bulshada rayidka, xubno ka socday maamulka gaar ahaan baarlamaanka, xubno wasiirre ah ayuu isugu yeeray goordhow. Wuxuu uga warbixiyay heshiiska iyo xaaladda socota wada hadallada dawladda federaalka iyo maamulka Jubbaland u furmay. Jalayaal soo dhawaada wararkaas ayaan rabnaa inaan isha marino, wax dhabtaana inaan idinla wadaagno ayaan rabnaa. Waxaan idinka codsanaynaa jalayaal, halkan waa kanaalka rasmiga ee aad si degdeg ah uga heli kartaan wararka Jubbaland saacad iyo sikir. Waxaan muuqaalkan la gareeyay si uu meel fog noogu gaaro. Soo dhawaada. Waxaan rabaa inaan ku bilaabo sida ogtihiin goordhow 2 diyaaradood oo hordhac u ahaa wafdiga dawladda federaalka ahna ilaaladii madaxweynaha ayaa goordhow ka degtay magaalada Kismaayo. Xalay waxay noo joogtay iyadoo filla Soomaaliya iyo filla Kismaayo laga sugayo 2 warqadood oo ah in warqadihii waaranka ahaa laga noqdo. Laakiin waxaan moodaa warqadahaasi inay dib u dhaceen. Ilaaladii madaxweynaha ayaa gaartay magaalada Kismaayo oo ciidankii koofiyad gaduud ahaa ay ka mid yihiin. 2 diyaaradood ayaa ka degtay, inkastoo aan la soo duubin muuqaaladooda, aan baraha bulshada la gelin, sawiradooda aan la arkin. Haddana waxaa la ii xaqiijiyay waliba si xaqiiqo ah la igu sheegay in 2daas diyaaradood ay degtay, ayna saarnaayeen ciidamo ka tirsan ilaalada iyo xubno maaragtay agaasimayaal iyo kuwii qaban qaabil lahaa madaxweynaha ama xafiiska ka socda madaxweynaha ayaa halkaa ka degay. Sidoo kale waxaa goordhow Kismaayo laga sugayaa sidaan horay idinkugu sheegay wafdi ka socda dawladda Kenya iyo wafdi ka socda dawladda Itoobiya oo isugu jira safiiro iyo taliyayaal nabad sugideed, taliyaha nabad sugidda Itoobiya iyo Kenya, 2 taliye sirdoonka 2 dal iyo sidoo kale safiiro 2 dawladood ka socda. Sidaa ogtihiin wada hadallada hadda socday waxaa ku jiray Itoobiya iyo Kenya oo u kala dabqaadayay madaxweynaha Soomaaliya iyo kan Jubbaland. Axmed Madoobe 2 qodob ayuu ka hadlay. Qodobka koowaad wuxuu ahaa wada hadalladan inuu bulshada u cadeeyo waxa ay yihiin, maadaama bulshada ay ku wareereen. Axmed Madoobe wuxuu yiri wada hadalladan macnaha wax ka yimid, wuxuu cadeeyay wada hadalladan wax ka yimid asaga iyo Xasan inaysan ahayn, oo wada hadalladu ay ka miisaan iyo mugweyn yihiin meesha laga filayo. wuxuu yiri aniga iyo Xasan waa dagaalanay, wada hadalladanna waxna quseeya oo labadayada aanu inta isku wacnay aan ka wada hadalnay ma jiraan. Dawladda shisheeye ayaa wada hadallada oo noo kala dabqaadayo, asagana iyaga keenayo. Arrintaas annaga waa noo diyaarsan tahay, waxa aan rabnay iyo wax reer Jubbaland ay rabaan. Miiska wada hadalladana la hortegaynaa. wada hadalladan kuwa annaga noqoseeya maaha, dawladda shisheeye soo abaabulay, soo agaasimay, ayaga karkarinayo. Xaaladda maanta magaalada Kismaayo waa baabuur iyo wafdi la soo dhaweynayay iyo kuwa la geynayo iyo kuwa laga noqonayo iyo garoonka. Waxaan u malaynayaa garoonka Kismaayo oo ugu yaraan ilaa 8 diyaaradood ayaa maanta ka degi doonta oo wufuud waxaan ahayn aan wadin oo qof shacab ah uusan saarnayn. macnaha taasi waxay ku tusaysaa wax ugu badan oo maanta Kismaayo ku qulqulayaan waa dad ajaanib ah oo dalalka dariska ka soo jeeda. waxay ku tusaysaa
maantay dowladnimadayadii meesha ay tagtay iyo heerka ay joogto in madaxweynaheenii dowlado shisheeye nabad sugid fiiri sirdoonkii Kenya iyo sirdoonka Ethiopia ayaa xal Soomaaliya ka shaqeynayo oo madaxweynaheenii waxay doonaan u yeerinayo oo qayb ka mid ah wadankiisii oo uu tagayo u damaanad qaadayo inuu ku nabadgelayo bal cabir inta miisaan saadid oo meel cillaa la tagtid bal ereygaas iyo warkaas iyo nuxurkaas sida uu kula yahay